dowladda Somaliland ayaa jawaab adag ka bixisay hadallo ka soo yeeray wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliya kaasi oo la xiriiray arrimaha isgaarsiinta. wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta ee Somaliland Mustafa Faarax Abraar ayaa arrintaasi si kulul uga jawaabay. wasiirka boosaha Soomaaliya oo dhawaan soo saaray xeerkaas uu ku sheegay in Somaliland ay ku jirto waxaan leenahay Somaliland waa dal madax bannaan xeerarkeega iyo shuruucdeeda way u madax bannaan tahay waxayna leedahay golayaasha cidijina oo soo saara shuruucdeeda waxaan nahay qaran madax bannaan xeerkeega iyo sharciga isku maamula waxaan idinka digaynaa inaad wax faragelin lah amba cagajweyn hada goor noqon timaadaan sharcigeega ayaanu ku maamulnaa dalkan iyo isgaarsiinta iyo shuruucdeeda. Somaliland way madax bannaan tahay waa qaran madax bannaan sharcigeega wata waxaan ku leeyahay wasiir xamar ku ekow xamar baad xukuntaa oo waliba daani xamar ku ekow baan ku leeyahay. wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta ee Somaliland dhanka kale waxa uu ka hadlay xildhibaano ay isku deegaan yihiin oo dhawaan ka dareeray xisbiga kulmiye waxaanu sheegay in xildhibaanadaasi arrinta ay sameeyeen aanay sax ahayn isagoo fariin adagna u diray xildhibaanada reer Awdal waxaan leeyahay waraga qowl baa xidha dumarna meher baa xidha raga qowl baa xidha inaad xisbiga doonto gashay waad madax bannaantay inaad ninkaad rabto codaysana waad madax bannaantay laakiin waxaan meesha qaban inaad kolba meel ballan la gasho ama kolba meel aad khaawisto waxaad uwan tahay magacdii gobolka waxaad uwan tahay sharafkii raggii ku soo doortay war waxaan leeyahay wax u tura reewda la sidaa ma aha dad qowl la weeyi dad go'aan la weeyi dad siyaasadda ciday raacaanna la socdo weeyo ku tirsan ma aha dad kolba meel khaawiso kolba meel sameeyay war dadka u turaan leeyahay runtii ma wada aha xildhibaanadu sida waxa ku jira rag badan oo sharaf leh oo ballanna leh laakiin ragga qaarkood waxay had iyo goor door bideen inay labada dhanba yar khaawisaan labada dhanba la heshiiyaan taana waxaan leeyahay ballan darro waa diin darro qofku inuu ballan yeeshay waa shardiga koowaad ee siyaasadda inuu meel lagu yimaadana waa axdiga furan waxaan soo dhaweynayaa go'aankii ay maxkamadda sare ka soo saartay muramkii baarlamaanka waxaan hambalyeynaya xildhibaanadii go'aasay fiican ay u qaateen go'aankii ee dhexdooda in khilaaf ku dhameystaan. Batri Koosar Maxamuud telefishinka Aerial Hargeysa.